macallin ayaa maalin maalmaha ka mida u soo galay ardaydiisii sida caadiga ahayd wuxuuna sabuuradda ku qoray 2 lagu daray 2 inay la mid tahay 5 wuxuuna ardaydii ku qasbay dhammaantoodba isla egtaasi marka laga reebo hal arday kaasoo sheegay inay tahay mid khaldan haddii 2 lagu daro 2 ay la mid tahay 4 isla markiiba waa uu xanaaqay macallinkii wuxuuna u sheegay ardaydii inaysan ahayn inay ka hadlaan arrintaasi wax fasax ahna aysan u haysan inay saxaan wuxuu isku dayay macallinkii inuu ardayga aamusiyo oo uu raaco laakiin ardaygii weli wuxuu ku celcelinayay in 2 lagu daray 2 ay u dhiganto 5 ay tahay mid beena kadib macallinkii waxa uu ka baxay fasalkii wuxuuna la soo noqday 3 arday oo ka mid ah ardayda sarsare oo gacmaha ugu xiran yihiin maro guduudan watana rasaas mal awaala macallinkii ayaa weydiiyay ardaydii sare halka 2 lagu daray 2 3 ardayna waxay ku jawaabeen inay la mid tahay 5 intaas waxaa sii dheer halkii arday ayaa weli ku taagnaa go'aankiisii geesinimada lahaa waxaana loogu yeeray xagga hore ee galaaska macallinkii ayaa siiyey fursad uu mar kale jawaabta ku qoro sabuuradda 2 lagu daray 2 maxay la mid tahay ayuu weydiiyey ardaygii oo si cad u niyad jabsan macallinku wuxuu ardayga u sheegay inay tani tahay fursaddiisii ugu dambaysay oo uu ku siin lahaa jawaabta saxda ah 3 arday ee sarsare ayaa si lama filaana qoryihii mala awaalka ay wateen ku toosiyay ardaygii sidii iyagoo isku diyaarinaya inay dilaan ardaygu wuxuu u muuqday mid wareersan oo xoogaa fakaraya markaas ayuu qoray 4 macallinku wuxuu bixiyay go'aankiisii rasaasi ayaa markiiba la maqlay oo dhiiggii ayaa ku firdhay sabuuradda waxaa sidoo kale la arkay meydka ardayga oo dhulka ku sii dhacaya inta kale ee ardaydii fasalka way aamusan yihiin waxayna ka argagaxsan yihiin waxa ay markhaati ka ahaayeen indhahoodu 3 arday ee sarsare ayaa meydkii ardaygii la dilay ka soo saaray fasalka macallinkii dib ayaa u bilaabay casharkiisii wuxuuna sii waday inuu ardaydii ku amro inay qoraan 2 lagu daray 2 inay la mid tahay 5 si kastaba ha ahaatee waxaa jira arday gadaal fadhiyay oo la arkayay isagoo tirtiraya 5 kuna bedelaya 4 si taxadar leh qisadani waxa ay qayb weyn ka ahayd filim gaaban oo la yiraahdo 2 and 2 kaasoo uu qoray Babak Anfari waxaana la sii daayay 2009kii waxa uuna helay abaalmarinta BAFTA ee filimada sanadka markuu ahaa 2012kii qisadan ayaa muujinaysa in mar walba qofka haya wadada saxan uu ku taagnaan doono wadadiisa haba sababta noloshiisabe ardaygii laga dhex qaaday meydkiisa fasalka waa mir soo saaraysa jiil ku toosan oo raaca wadada saxan waxayna u noqonaysaa jid iyo hagi toosan waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biro channelka subscribe saar muuqaalkan hadaa ka heshay like saar mahadsanid